بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواها channelkeena farxiya kushiin asxaabta qaaliga ah mar kale muuqaal cusub. subaxdii quraacdii aan kariyay, hawsha aan qabtay iyo qadadii xaajiga maasha Allah tabarakallah. rootiinkeyga ayaan rabaa inaan idinla wadaago. ugu dambeyntiin hilibkiisaas ayuu kusoo baxay. soo dhawaada daawasho wanaagsan. kan quraac iyo ceesh waaye, saaka ceeshka maba karininba. ceesh diyaarsana soo gatay, kili iyo waxa u samaystay qudaar. kanna waa qadadii maasha Allah tabarakallah. ugu dambeyntiina saan ay kusoo baxday. yaa soo dhawaada daawasho wanaagsan. marka hore quraacdii iyo guri hagaajintii kadib ayaan qadada sameynayna insha Allah. marka hore waxaan soo qaatay digsi, dabkan saaray, kadib basal yaraan ku daray. waxaan rabaa inaan kariyo kili iyo qudaar, rabaa inaan isku kariyo. yaa saak waxaa waaye ceesh fresh ah, waxaan kasoo helay supermarketka. ceeshkaas rabaa inaan quraac ka dhigano. kilidii markaan soo jarjaray, basasha markay noo bislaatay, kiliyaan ku daray. intaas kadib waxaan ku daray toon, waxaan ku daray qaadada haafkeeda oo garam masala ah ama xawaaji isku dardar ah, qaadada haafkeeda barbarooni shiidan, qaadada haafkeeda oo huruud ah, qaadada haafkeeda oo cusbo ayaan ku darayaa. intaas kadib qaadadan dhex marinayaa. kiliyaha ayaga biyo keenayo, uma baahnid inaad biyo ku darto. intaas kadib baradho iyo karootaan ku darayaa, daboolkan dhab ku siinaya, dabkan u yareynayaa. 10 daqiiqo kadib waan kusoo laaban doonaa insha Allah. dabka u yaray, biyihii uu keen un balu maxaan ku iraahdaa baradhada ay ku bislaanaysaa. dab yariis ay u baahan tahay liciif ah. intaas kadib waan kusoo laabtay maasha Allah. baradhada xitaa si fiican ay u bislaatay oo ujeedaan maasha Allah. uma baahna waxyaabo kale inaad ku micnaha biyo iyo inaad ku darsatid. haddaad doonto waa ku darsan kartaa, laakiin ani saan leh ku rabaa. intaas kadib waxaan soo jarjaray barbarooni iyo basal baar, kadib waan ku darayaa, qaadada dhex marinayaa. quraacda diyaar waay maasha Allah tabarakallah. ujeedaan quraac yar kaaliska arag oo iska fudud, laga sheekeyn karin. waa markii ugu horeysay aan ceesh kasoo gada banaanka aan maxaan ku iraahdaa aan ku quraacano. ceeshkan waxaa laga helaa meelaha ma arkno rootiga iyo ay saaran yihiin ayaa maxaan ku iraahdaa aad ka heli kartaa. ceeshkii waa soo yara kululeysa ujeedaanba. intaas kadib saxanigan dhinac kasoo saaray 2 xabo ceesh oo aan soo jarjaray, kadibna kiliyihii saa u soo saaray macal qudaartii maasha Allah tabarakallah. dhinaca kale shaahi quraacdii sheekada saanay kusoo dhamaatayba, lagama sheekeen karo. quraac yar oo iska fudud 2 daqiiqo maasha Allah tabarakallah. jikada imaanay, jikada saanay oo egtaa. marka hore weelka iska dhaqaaya, kadib ayaan jikada nadiifin doonaa insha Allah. dhamaantiin waxaa idinku codsanaa muuqaalka hadduu idin cajab geli inaad like noo saartaan. haddii ay tahay channelkan markii kugu horeysa aad soo booqatid, waxaan kaa codsanaa subscribe inaad taawatid, kadibna gambaleelka taawo si muuqaal walba usoo dhigo oo kugu soo dhaco insha Allah. haddii aad gambaleelka taawatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo. gabdho badana waxay dhaheen farxiyo maxaa cunooyinka xaajiga intee naga geysay. yaa like-ta igu yareysa, ma fahanteen? muuqaalka like-ta u badiyo, 1000 like gaarsiiya si aan idinkugu soo badiyo cunooyinka xaajiga, qado, quraac, casho yaa cunada qaaska loo sameeyo. waxyaabahaas oo dhan waa idin soo badin doonaa. idinkana like-ta naga bakhiilina, like-ta noo saara. maacuuntii saana lagu soo dhaqmis dhahdeen. weelkii oo dhan waa soo dhaqay, shabagaasan saa usoo sarsaarayaa. intaas kadib jikadii aan iska dhaqaayaa. jikadii sheekadeedii qaybta kor way soo dhamaatay, qaybta hoose ay noo dhiman. ani jikadeedu waxaa waaye yaa gaarinimo leh mis dhahdeen. roogaasaa dhexda ii yaalo, roogaasaan qaadayaa, dhulka leen jagjag ku siinayaa, caradii iyo wixii wasaqdian ka daadinayaa. intaas kadib waxaan ku iraahdaa geedkaas burka iyo waxyaabaha aan ku qasto qaybta koraasaa u saarayaa. xaaqankeyga la soo boodayaa, meel walbaan iska nadiifinaya insha Allah. markaan xaaqa kadib ayaan tirtiri doonaa. tirtiraha aan u isticmaali doono jikada waa tirtiraha aan aniga gado. hadduu ku cajab geliyo gurigaaga lagugu keeni karaa insha Allah. marka hore xaaqinkaan soo qaadanayaa, wixii wasaq ah wixii bacaa la iska qaadaya si fiican. tirtiraha kan waaye asagoo caaga, asagoo qalin ah, macnaha gudahan meesha biyaha oo majuujinaysan ka wadaa. saasa u riixaysaa biyihii. markaas u soo qaada ama oomadii, biyo iyo ooma isku dar waaye. waa ku tirtiranaysaa gurigii. markaas si fiican ugu tirtiratid, isla asagii si fudud kuugu majuujinaya. wax inta adiga qabatid oo gacmahaaga ku majuujinaysid ma ahan. meel walba saa usoo tirtirayaa. adoo taaganaad tirtiri kartaa, ushiisa waa dheereen kartaa, waad gaabin kartaa. macnaha sida wax ugu tirtiraysid aad ay u fududahay. meel walbana nadiif uu kaaga dhigaya maasha Allah. wuxuu leeyahay laba wax shukumaan ahaana ku jiro, waa la kala bedeli karaa.
kan markaa isticmaashid intaad dhaqdada ka saartid ayaad midka kale u isticmaali. Halka ayaa sida ugu riixriixaysaa biyihii dhan wuu ka majoojinayaa qallayl uu noqonaa ma fahantay. kadib haddana sida camal waa ku celinaysaa dhulkii waa ku qalajinaysaa maasha Allah. jikadii dhinac walba waa kasoo tirtirayaa markaan soo nadiifiyo kadib maxaan ku iraadaa dabeesha ee marto dhulka dhan qallayl uu noqdo ayaan rooga kusoo celin doonaa. Ani jikada markaan ku jiro waxaa jeclaa inaan rooga bayntii jikada waa soo dhameynay wax yar kadib waxaan ku iraadaa roogii halkaas sidaa u dhigay. yaa maasha Allah tabaarakallah isku mid ma waa ujeedaa marka hore hadda inaba caadi ma ahan. dhinaca kale waxaan rabaa inaan kariyo qadadii xaajiga maasha Allah tabaarakallah hilib dhayla ah isku dheeli tiran ugu dambeyntiina saan ayuu kusoo baxay maasha Allah. hilibka marka hore waxaan rabaa pressure cooker inaan kusoo kariyo kadibna aan dubo birtaas grillka aan ku dubo. waxaa waay garab ari oo 3 qayb laga dhigay. intaas kadib biyo cusbaan ku darayaa daboolkan dhab ku siinayaa 40 ilaa 50 daqiiqo ayuu dabka saarnaanaa insha Allah. maraqa oo hilibka waxaan rabaa inaan bariiska ku kariyo waa bariis iyo hilib iyo macal qudaartiisii. hilibkii markaan digsiga ku riday biyaan ku daray cusbaan ku daray kadibna waxaan ku daray toon 2 xabo wax yaroo qorfaan ku darayaa kastoo waxaan rabaa caraf 40 daqiiqo kadib dabka ayaan kasoo qaaday. ugu dambeyntiina waa kaasa hilibkii maasha Allah tabaarakallah. intaas kadib hilibkii rabnaa inaan maxaan ku iraadaa dhadhan u yeelno oo kaal arag ka dhigno. qaadada haafkeeda oo huruuda u baahan tahay, qaadada haafkeeda oo barbarooniga shiidan ayaa u baahan tahay, qaadada haafkeeda oo xawaaji isku dardar ah iyo qaadada haafkeeda oo yaanyo shiishiida u baahan tahay. kadib waxaa u baahan tahay wax yar oo saliid ah ama subag u isticmaali kartaa. intaas kadib waxaan ku darayaa waa isku soo qasaa macnaha kadib ayaan waxaan ku dari doonaa wax yar oo liin dhanaan ah. jab liin dhanaan ku miirayaa kadibna waa isku qasaysaa si fiican. intaas kadib hilibkii ku bisil ayaad soo qabanaysaa xawaajiyadan la rabaa inaad marmarisid si fiican. dhinac walba ayaa ka marinaysaa si fiican ayaa u marmarinaysaa hilibkii oo dhan saas soo marmarinayaa. birta isku daboolka oo korontada loo isticmaalo ayaan rabaa in aan ku dubo. haddaad doontid birta isku daboolka oo dabka caadiga la saaro ayaad u isticmaali kartaa dhib ma lahan. wax yar saliidan ku dadaadinaya kadibna hilibkan sida u saarayaa kadibna waan kusoo daboolayaa 10 daqiiqo. hilibku markuu noo dubmo oo kaal arag uu kusoo baxay aan kusoo laaban doono insha Allah. waa 10 daqiiqo saas la usoo daboolaysaa inaa xirtid ma ahan macnaha hilibka waa weyn soo maahan lama xiri karo kusoo daboolaysaa oo kaliya. ugu dambeyntii waa kusoo laabtay 10 daqiiqo kadib maasha Allah tabaarakallah. hilibkii waa ujeedaan saas ayuu kusoo baxay quruxda badan lagama sheekeyn karo. dhadhankiisa iyo caraftiisa hilibkii oo dhan saan ayaan kusoo dubayaa. kan labaadna sidoo kale saas leen usoo saarayaa. hilibku waxaa asaaba bisilba xawaajigaas leen rabaa macnaha ama kalarkaas wax yarna ku shiilo oon yara dubo un baan rabaa. sheekadii hilibka saan ayay kusoo dhamaatay. bariis yar oo kaale iska arag aan kusoo tuurayna insha Allah aad u caraf badan. kan waxaa waay sixin lo digsiyan dabka saaray sixinta ku shubayaa. sixinta waxaa marka u hore way shiiraysaa laakiin bariiska markaad ku karisid yaa caraftiisa lagama sheekeyn karo maasha Allah. sixintii markaad digsiga ku shubo waxaan ku daray wax yar oo heyl ah kadib waxaan ku daray 2 xabo basal ah. basashii markay inoo bislaatay 1 qaado oo xawaaji isku dardar ah. qaadada haafkeeda oo barbarooniga shiidan ayaan ku daray. 1 qaado oo heyl shiidan ayaan ku daray waa heyl shiidan kadib waxaan ku daray wax yar oo cusbo ah. kadib waxaan ku darayaa ilaa 3 qaado oo zabiib ah. qaadadan dhaxmarinayaa. intaas kadib waxaan soo jarjarayaa ilaa 3 xabo karoota oo aan si yar yar u soo jarjaray iyo bakeeriga haafkiisa oo digirta cagaarka ah. intaas kadib maraqii oo hilibka ayaan kusoo shubayaa. bariiskana intaan leel roomo faanta isku kariska intaan leen raba inaan ku kariyo waxyaabo kuma darin waxyaabo kale kuma darin intaan ku filan maasha Allah. markuu soo barina waxaan kusoo gedinayaa bariiskii soo dhaqay kiilo wax yar dhiman. qaadada dhaxmarinayaa bariiska sheekadiisaan ay kusoo dhamaatay daboolkan dhab ku siinaya. markuu diyaar noqdo ay kusoo laabanayna insha Allah. bariiskii diyaar waayo waxaan soo qaatay saxankaas alwaax ah. saxankaan kusoo diyaarsanayaa. xaajiga iyo xaajiyada ayaa loo soo diyaarinaa ma fahanteen. xaajiga oo kaligiis ma ahan xaajiyadan waa inay la qadaysaa soo maahan maasha Allah tabaarakallah. intaas kadib saxankii markaan bariiska soo saaray aan salaatan dhinac ka soo saaray. jibsi yaran dhinac kale ka soo saarayaa. jibsiga markaan soo saaray dhinac kale hilibkii waxaan ku dadaadinayaa waa basal.
basash wax yar ayaan soo kariyey kadib liin dhanaan saa usoo saarayaa maasha allah tabaarakallah wax ka maqan ma jirto ugu dambeyntiina waa ujeedaan saxankan qofkii la hordhigaan ku dhahay yaa inuu kuu cimaamadaay sheeki kuma jiro waxaa rajeynaa inaa ka faa'iideen ugu dambeyntii rutiinkeena quraacdii qadadii yaa hawshii rojikada maasha allah tabaarakallah muuqaalka ha noqdo kii ugu laagta badnaa waa ku mahadsantiin daawashadiina koomentiyadiina iyo weliba dhiirigelintiina hilibkan indhiina idin macalin ah siduu u kala daatay yaa lagama sheekeen karo maasha allah tabaarakallah intaan hiisay ilaah si anagan ilaahay inoo barakeeyo waxaa idinkaga tagaa kheyr caafimaad bidilaahi inshaa mac salaam